labada gole ee baarlamaanka golaha shacabka iyo aqalka sare maalmihi aan soo dhaafno waxaan ku jirnay shirar isdaba joog ah kuwaasi oo looga hadlayay xaaladaha ka soo cusboonaaday dowladda Jubbaland. Marka ugu horeysa waxaan tacsi u direynaa dhammaan qoysaskii iyo qaraabadii iyo agoontii wixii dhibaha ka soo gaaray ciidamada dowladda Jubbaland iyo ciidamada SNA ee Soomaaliya. waxaan balli u direynaa guulihii laga soo hoyay intii dagaalku socday iyo oo runtii guulo taariikhi ah oo ciidamada dowladda Jubbaland iyo kuwa SNA ay ka soo hoyeen jiidda hore ee dagaalka taasoo laga xoreynayo waddanka xoogagga khawaarijta ee ku jira ku dhuumaalaadsanaya duurkaas. xildhibaanadu intay shirayeen waxay isla go'aamiyeen dhowr qodob. marka ugu horeysa in taageero buuxda loo muujiyo ciidamada dagaalamaya dowladda Jubbaland oo ugu horeeya madaxweynuhu iyo golayaasha iyo shacabka reer Jubbaland guulaha in la garab istaago. midda labaad kaleetana waxaa la keenay ciidamo ku soo dhaawacmay jiidda hore ee dagaalada oo la keenay magaalada Muqdisho isbitaalada la keenay. taasna waxaan ku howlan inaan soo dhaweyno inaan isbitaalka ugu tagno inaan garab istaagno inaan dhaqaale ahaan in la taageero. taasna runtii wax fiican baa laga qabtay, shaqadu way socotaa. sidaas daraaddeed meel kastoo joogno waxaan ugu baaqaynaa dadka deegaamada Jubbaland inay si fiican uga qayb qaataan horumarintaas iyo waddanka dib u xoreyntiisa. hay'adaha dowladda federaalka, wasaaradda gaashaandhigga, xafiiska ra'iisul wasaaraha, xafiiska madaxweynaha iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed waxaan rabnaa in dagaalkaas cid kasta waxay ka geysan karto inay ka geysato, hadday noqoto taageero dhaqaale, hadday noqoto mid ciidan iyo hadday noqoto mid si kasta oo loo taageerayo dadka wax ku noqday. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. waxaan u banaynayaa xildhibaanada saaxiibaday ah iyaguna inay ku daraan wixii kaalina.